Waad salaamantiin asxaabta kusoo dhawaada barnaamijkeena 1by1 oo ku soo qaadano wararka iyo warbixinada ugu dambeeyay kubadda cagta. Waxaan muuqaalkan ku eegi doonaa kooxda Manchester City oo isku diyaarin doonta kadib tababaraha kooxda Pep Guardiola, taas oo la filayo inuu ka tagi doono kooxda ka dambe sanada 2025, halka kooxda Manchester United iyo sidoo kale Bayern ayaguna isku diyaarinayaan inay soo jiitaan ama ay la soo wareegaan tababarihii hore ee kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane. sidoo kale waxaa jira qodobo kale aanu kaga hadli doono muuqaalkan. haddii aad ka heshid fadlan like sar subscribe na dhex channelkaasi aad ula socotid muuqaalada dambe. sidoo kale haddii aad jeceshay inaad soo booqatid baraha kale aanu ku leenahay baraha bulshada, waxaad dhammaan linkadooda ka heli doontaa khaanada description-ka. ugu horreynta haddaynu ku bilowno tababari hore ee kooxda Real Madrid ayaa la sheegay inay isha ku haya tababarnimada uu doonayo inuu tababaro kooxda Manchester United, iyadoo saacadihii ugu dambeeyay lala xiriirinayay kooxda Bayern. kooxda Bayern ayaa la filayaa xagaaga soo socda inuu tababaro cusub oo magacaawdo kooxda kadib markuu hal xilli ciyaareed oo kaliya uu tababar u ahaa tababaraheeda waqti xaadirkan ee Thomas Tuchel, kaasoo la filayo inuu ka tagi doono kooxda dhamaadka xilli ciyaareedkan. haddaba tababari hore ee kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ama sidoo kale tababarayaasha ay isha ku hayso kooxda Bayern. sidoo kale waxaa jira iyaguna tababarayaal kale oo ay isha ku hayso kooxda Bayern, waxaana ka mid ah tababaraha kooxda Brighton ee Roberto De Zerbi iyo tababarihii hore ee kooxda Manchester United ee Ralf Rangnick. sidoo kale waxaa jira tababarayaal kale maadaama kooxda ay marka hore isku dayday inay soo ceshito tababaraheedii hore ee Nagelsmann, balse uu tababaraha heshiiska dhudhu sameeyay xulka qaranka Jarmalka ilaa sanada 2026. haddaba iyadoo ay taasi jirto ayaa la sheegay in halyeyga hore ee kooxaha Real Madrid iyo Juventus ay isku dayi doonto kooxdu inay soo qaadato kaasoo ah Zinedine Zidane, inkastoo la sheegay inuu isha ku hayo sidoo kale kooxda Manchester United. Zinedine Zidane ayaa isagu mar hore lala xiriiriyay kooxda Manchester United. sidoo kale tababaraha waqti xaadirkan ee kooxda Manchester United Erik ten Hag ayaa la filayaa kadib markuu xilka la wareegay Jim Ratcliffe oo ka mid ah ama noqday agaasimaha cusub ee kooxda Manchester United inay ciriiri gasho xilkiisu. haddaba waxaa la filayaa inay suuragal tahay tababare Zinedine Zidane inuu ka mid noqdo tababarayaasha ay doonayso ama ay u dhaqaaqi doonto kooxda Manchester United. tababare Zinedine Zidane ayaa ah sidoo kale kula guuleystay kooxda Real Madrid 3 Champions League xilli ciyaareedadii 2015, sidoo kale Zinedine Zidane ayaa awooday inuu mideeyo qolka bedelka ee kooxda Real Madrid. haddaba tababarahan oo ku guuleystay koobka adduunka sanada 1998 ayaa la filayaa inuu kusoo laaban doono xilka tababarnimo kadib markii uu ka tegay markii ugu dambeysay uu hayay kooxda Real Madrid, maadaama uu marka hore kula guuleystay 3 Champions League. intaa kadib uu iska casiray xilka, haddana mar kale uu kusoo laabtay, haddana mar kale uu iska casiray xilka kooxda Real Madrid, balse waqti xaadirkan ayaa waxaa la xiriirinaya ama waxaa la sheegayaa kooxda Manchester United iyo sidoo kale kooxda Bayern inay yihiin labada kooxood ee la filayay inay ku qaadi doonaan labada kooxood ee la filayay inuu tababar noqon doono tababare Zinedine Zidane haddii uu kusoo laabto waayihiisii tababarnimo. isla magaalada Manchesterna kooxda Manchester City ayaa la sheegaya inay isku diyaarinayso kadib tababaraheeda Pep Guardiola kadib markii uu la wareegay xilka tababarnimo ee kooxda sanada 2017. kooxda Manchester City ayaa la sheegay inay isku diyaarin doonto iyadoo la filayo tababaraheeda Guardiola inuu ka tagi doono kooxda. Manchester City ayaa hadda waxa ay bilowday sidii ay u noolaan lahayd tababare Guardiola la'aantii, maadaama ay la feegay inay kooxdu doonayso ama ay suuragal tahay inuu tagi doono tababare Guardiola dhamaadka xilli ciyaareedka ama sanada 2025. haddaba Guardiola ayaa ku guuleystay kooxda Manchester City inuu ka dhigo waqti xaadirkii ama waqtiga ugu fiicnaa kooxda, balse Guardiola ayaa la filayaa inuu ka tagi doono garoonka Itixaad mustaqbalka dhow. waxayna bilaabeen madaxda kooxdu inay qorsheeyaan sida ay ula soo wareegi lahaayeen ama ay sii diyaariyaan tababarihii ku xigi lahaa ama la wareegi lahaa xilka tababarnimo ee kooxda Manchester City. waxaana la sheegay in tababaraha kooxda Girona ee Michel uu ka mid yahay tababarayaasha ay doonayaan madaxda kooxda Manchester City inuu qabto xilka tababarnimo ee kooxda Manchester City, maadaama sidoo kale gruupka City ee kubadda cagta ayaguna yihiin kooxda gacanta ku haysa kooxda Girona, taasoo uu awooday tababaruhu inuu kasoo qaado koobaha ama sidoo kale kaalmaha hoose, waqti xaadirkanna uu keeno kaalinta saddexaad ee horyaalka wadanka Spain ee La Liga. sidoo kale waxaa la sheegay tababaraha kooxda Girona inuu maalmihii ugu dambeeyay ama bilihii ugu dambeeyay uu isku dayay inuu barto luqadda Ingiriiska, taasoo cadeynaysa ama la filayo inay u tahay waxyaabaha sheegaya inuu tababarahan u noqon karayo tababaraha kooxda Manchester City kadib marka uu ka tago kooxda tababaraheeda ee Guardiola. balse waxaa jirta fursad ah inuu tababare Guardiola sii joogi karo kooxda Manchester City, balse waxaa yar fursadda ama sidoo kale kalsoonida ah inuu sii joogo sanada 2025 kadib. balse waxaa jira xiriir adag oo u dhexeeya isaga iyo agaasimaha kooxda Khaldoon Mubarak, kaasoo kooxda Manchester City fursad siin kara inuu mar kale u saxiixo heshiis. waxaana la filayaa kooxda Manchester City
inuu ka tegi doono tababaraheeda Guardiola sanada 2025 isagoo sheegay Guardiola haddii uu ka tago kooxda Manchester City inuu qaban doono xilka madaxa xulka qaranka isagoo sheegay inuu doonayo inuu ka qayb qaato ama uu ka qayb qaato koobka adduunka ama koobka Yurada ama Copa America isagoo ah tababare haday noqoto inuu tababaro noqdo mid kamid ah xulalka qaaradda Yurub inkastoo ay aad u raadinayaan xulka qaranka Ingiriiska iyo sidoo kale xulka qaranka Spain balse Guardiola ayaa ku fikiraya inuu noqon doono ama uu doonayo inuu ka qayb qaato koobka adduunka isagoo kamid ah xulalkaas mid tababaraya sidoo kale uu doonayo inuu ka qayb qaato sida koobka Yurada ama sidoo kale koobka qaaradda Latin America ee Copa America kooxda Manchester City ayaa la filayaa sidoo kale inay qorsheyn doonto in la soo wareegi lahayd ciyaartoyga bedelka uu noqon lahaa ciyaartoyga iyo sidoo kale kabtanka waqti xaadirkan ee kooxda Manchester City Kevin De Bruyne dhinaca kale haddaynu dhinaca Spain ciyaartoyga Nacho oo ahaa kabtanka kooxda Real Madrid kulanka ugu dambeeyay kooxda ciyaarto koobka Champions League kaasoo dhexmaray kooxda Real Madrid iyo kooxda Manchester City sidoo kale kamid ah ciyaartoyda ugu cadcad kulanka ayaa la sheegay ciyaartoyga Nacho inuu go'aansaday ama uu doonayo ama uu gaarsiiyay mas'uuliyiinta kooxda Real Madrid inuu ciyaartoyga doonayo inuu ka tago kooxda Real Madrid dhamaadka xilli ciyaareedkan ciyaartoyga Nacho oo ku soo biiray kooxda Real Madrid ama kamid ah ciyaartoydii ka soo baxay akademiyada kooxda iyadoo ciyaartoygani marka la isku daro intuu ciyaaray kooxda koobaad ee kooxda Real Madrid iyo sidoo kale akademiyada haday noqoto heerarka da'da ciyaartoygan ayaa waxa uu galay hadda ama waxa uu ku jira sanadkii 23aad oo uu ciyaarayo kooxda Real Madrid haday noqoto kooxda koobaad iyo sidoo kale akademiyadaha haddaba Nacho ayaa kooxda Real Madrid ee koobaad waxa uu ka soo muuqday sanadii 2011 xilligaas oo uu fursad siiyay tababare waqti xaadirkaas ku hogaaminayay kooxda Real Madrid ee Jose Mourinho haddaba xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ayaa waxa uu ahaa xilli ciyaareedkii uu isku dayay ciyaartoygan inuu ka tago kooxda Real Madrid kadib markii uu ciyaartoygan ciyaaray kulanka ugu dambeeyay ay la ciyaareen kooxda Athletic Bilbao balse ciyaartoygan ayaa uu arkay inuu fursad kale ama sidoo kale riyo kale ama uu kooxda Real Madrid soo joogi karo oo kula guuleysan karo koobab kale ciyaartoyga Nacho oo jira waqti xaadirkan 34 sano ayaa ciyaartoygana waxa uu kamid ahaa ciyaartoydii ka soo qayb qaadatay kooxda Real Madrid koobabka ay ku guuleysatay haday noqoto koobabka Champions League iyo sidoo kale liigaga iyo sidoo kale koobabka kale ay kooxda ku guuleysatay balse ciyaartoygan ayaa waxa uu kamid ahaa ciyaartoyda bedelka u xisaabsan kooxda Real Madrid sidoo kale ciyaartoygan ayaa waxa uu ahaa ciyaartoyda loo yaqaan Joker maadaama ciyaartoygan awood u lahaa kooxda Real Madrid inuu ka ciyaaro dhammaan afarta boos ee khadka daafaca haday noqoto dambeed midig dambeed bidix iyo sidoo kale labada dhexe ama daafacyada dhexe ee kooxda Real Madrid ciyaartoygan ayaa sidoo kale ahaa ciyaartoyga buuxin jiray hadduu maqnaado mid kamid ah ciyaartoyda ka maqan ama afarta ciyaartoy ee ka ciyaarta booska difaacyada haddaba ciyaartoygan ayaa waxaa la sheegay inay kooxo badan doonayaan ciyaartoyga Nacho waxaana la filayaa kooxda ugu cadcad inay tahay kooxda Inter Milan ciyaartoygan ayaa la filayaa inaanu sii ciyaari doonin ama aanu ciyaari doonin koox kale oo ka ciyaarta wadanka Spain oo ahayn kooxda Real Madrid waxaana la filayaa in sanadii hore waxaana jirtay in sanadii hore markii uu tababaro u ahaa ama uu hayay xilka tababarnimo ee kooxda Roma tababare Jose Mourinho inuu isku dayay ciyaartoyga inuu la soo wareego balse ciyaartoyga Nacho ayaa hadda la filayaa inuu ciyaartoygani ka qayb qaadan doono ama kooxda Inter Milan ay isku day doonto inay la soo wareegto Nacho ayaa xilli ciyaareedkan kooxda Real Madrid waxa uu ciyaaray 29 kulan inkastoo xilli ciyaareedkii hore uu kooxda u ciyaaray 44 kulan haddana way isku dhow yihiin oo ciyaartoygan waxa uu kamid ahaa ciyaartoydii marka loo baahdo oo soo bandhigi jiray tababar ama bandhig aad u weyn Nacho haddii uu go'aankiisa qaato ah inuu ka tago kooxda Real Madrid madaxweynaha iyo sidoo kale madaxda kooxda Real Madrid ayaa go'aamin doonta ama qadarin doonta go'aanka ciyaartoyga kadib markii uu ciyaartoygan 18 kooxood u ciyaaray haddaba waxaa la filayaa in ciyaartoyda bedelkiisu ay noqon karaan ciyaartoyga Rafa Marin oo ama ugu maqan kooxda Alaves kamid ah ciyaartoyda akademiyada kooxda Real Madrid sidoo kale ciyaartoyda Rudiger Alaba iyo Militao ayaa ah kuwa soo bandhigay inkastoo ay ciyaartoydaasi dhaawac uu soo gaaray ama ciyaartoyga Alaba uu dhaawac ku maqan yahay waqti xaadirkan sidoo kale ciyaartoyga Militao isaguna dhaawac ka soo laabtay kulamadii u dambeeyay